بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan uga waramaynay taariikhda oodna ka daawanaysaan telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aan u galin. maantana waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa taariikh kooban oo ku saabsan boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. boqortooyada soo jireenka Soomaaliya waxaa la aasaasay 7 bishii July ee sanadkii 2000 ee miilaadiyada. waxa ayna daba socotaa boqortooyadii Ajuuraan. sidoo kale qaabkii ay u soo socotay ayaa waxa ay ahayd sidan. boqortooyadii Ajuuraan intaan la aasaasin qarnigii 10aad ee miilaadiga waxaa jiray boqortooyadii Ifaad oo ay xukumi jireen boqor Maxamed Alan Balcad aabayaashiisii. boqor Maxamed ayuuna ahaa boqorkii aas-aasay boqortooyadii Ajuuraan. sababihii uu boqortooyadani u aas-aasay ayaa waxa ay ahayd intuusan aasaasin boqortooyadani maamulkii ay lahaayeen aabayaashiisii ayaa waxaa ku soo duulay cadow. kadib cadowgaasi waxaa la dagaalamay boqor Maxamed Alan Balcad waxaana dhexmaray dagaal aad u qaraaran. ugu dambeyntii waxa ay guusha raacday boqor Maxamed Alan Balcad. kadib boqor Maxamed aabayaashiisii ayaa xukunka u hibeeyay waxaana sidaasi uu ku aasaasay boqortooyadii Ajuuraan. boqortooyadii Ajuuraan ayaa waxa ay jirtay qarnigii 10aad ee miilaadiga ilaa iyo qarnigii 12aad ee miilaadiga. ugu dambeyntii boqortooyada Ajuuraan ayaa daciiftay. sababihii ay u daciiftay ayaa ahayd khilaafaad dhexdoodii ahaaday. kadib markii ay aad u daciiftay boqortooyadii Ajuuraan qarnigii 12aad ee miilaadiga waxaa halkaasi ka soo baxay qoyska Dayle oo ah Gareen. waxa ayna go'aansadeen in ay boqortooyo kale aasaasaan oo ka sii hanaqaada boqortooyadii Ajuuraan sida ay markii horeba boqortooyada Ajuuraan ay ka sii hanaqaaday boqortooyadii Ifaad. boqortooyadii Gareen ayaa jirtay qarnigii 12aad ee miilaadiga ilaa iyo qarnigii 19aad ee miilaadiga. waxa ayna ahayd sababaha ay u daciiftay dagaalo badan oo ay la galeen gumaystihii Boortaqiiska iyo dagaalo ay kula jireen Xabashida. ugu dambeyntii qarnigii 19aad ee miilaadiga waxaa la qabtay taliyihii ugu dambeeyay oo uu ahaa Ololdiinle. waxa uuna ugu dambeyntii ku dhintay xabsiga Alan Baqe. sidoo kale dhanka koonfureed ee Soomaaliya oo ay joogeen reerka Cabdalla Dayle ayaa iyadana awoodeedii daciiftay waxaana ugu dambeyntii faraha ka baxay wadanka Soomaaliya. waxa uuna faraha u galay ururo ay aasaaseen dad Soomaali ah. kadib taariikhda markay ahayd 7 bisha July ee sanadkii 2000 waxaa la aasaasay boqortooyada soo jireenka Soomaaliya oo ka sii hanaqaadayso boqortooyadii Gareen ama boqortooyadii Ajuuraan ama boqortooyadii Ifaad. dhammaan boqortooyooyinkan oo dhan reerka xukuma qabiilkoodii waa Ajuuraan.